aqayaarta badan nagala xiriirtay waxaad ku soo dhawaatan war wixii dunida daafaha caalamka naga soo gaaray qodobada maanta ugu door karoon waxa qayb ka ah Mareykanka oo sheegay in cudurka coronavirus-ka uu yahay masiibada ugu balaaran ee dunida ka dhacaysa. kani waa wariyaha daada yar ee Cabdiraxmaan Buwaal Maxmuud oo ku magac dheer Catoosh Yare waxa uu ku nool yahay magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabelle. waa wiil daadiisu tahay 19 sano jir ahna arday dhigta fasalka 8aad wuxuuna jecel yahay mustaqbalka inuu noqdo wariye magac weyn leh. wuxuuna aad u xiiseeyaa wariyaha BBC-da ee Cabdirasaaq Xaaji Catoosh asiguna keena codkiisa. haddii aad dadka ku daawanayaan aad isbarto adigoo inta badan ee dadka FM-ka ka dhageysta ku murmaan Catoosh ma hadlaya ama Cabdiraxmaan Buwaal marka dadka ku daawanayaan isbar in horta awalan waan salaamaya asxaabta in haddii aan hore u gudagalno halkani waa BBC oo idin kala hadlayso muujadaha gaagaaban FM-yada waxaad naga dhageysan kartaa magaalooyinka qaar internetka ciwaankeena waa bbcsomali.com. qodobada warka duhurnimada ugu door karoon waxaa qayb ka ah dowladda Mareykanka oo ka caawinaysa dowladda Soomaaliya qalab ay kaga hortagayso cudurka coronavirus-ka. wasaaradda duulista hawada oo joojisay duulistiha oo ka socotay gudaha dalka Soomaaliya. ruux Soomaali ah oo u geeriyooday xanuunka caabuqa coronavirus-ka. wararka kale ciyaaraha waxa aan ku soo qaadan doono waxa qayb ka noqon doona naadiga Chelsea oo u gacan haatinayso laacibka reer Brazil ee Philippe Coutinho kama marna barnaamijka waayaha toddobaadka ee BBC. Cabdiraxmaan Buwaal Maxmuud oo ku magac dheer Catoosh Yare xilli aan wareysi la yeeshay ayaa wuxuu iyaga sheekeeyay taariikhda noloshiisa. magacaygu waa Cabdiraxmaan Buwaal Maxmuud oo ku magac dheer Catoosh Yare. waxaan ku dhashay magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe sanadka markuu ahaa 2000 da'deedu waa 19 sano jir. waxaan ku daydaa wariyaha caanka ah ee laanta afka Soomaaliga ee BBC. waxaan aad u jeclahay warbixinadiisa oo aan inta badan aan aad ugu xiranahay. sidoo kale hadda waxaan ahay wariye ka howlgala warbaahinta Jowhar. aniga yaraanteydii marka aan dugsiga dhiga jiray aad baan u xiisay jiray saxaafadda. waxaan ahaa qof aad u jecel dhanka iyo warbaahinta marka laga hadlayo. dadka qaar xitaa waxay isweydiinayaan sida aan ugu biiray saxaafadda. aniga markaan ku soo biirayay da'deedu waxay ahayd 16 sano jir. hadda 3 sano ayaan ku jiraa oo 2016 ayaan ku soo biiray. dad aad u fara badan oo taageero ii ahaa ayaa ugu dhaliyay in aan la baxo magac Catoosh maadaama aan aad ugu hadlo. asxaabta haddii aan mar kale aan ka shaki bixiyana waxaa ka mid ah qodobada warka maanta ugu door karoon waxaa qayb ka noqonaya Arsenal oo doonayso laacib u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Barca. Chelsea waxay u dhaqaaqi doontaa soo xirigelinta Ter Stegen iyo laacibka reer Brazil ee Philippe Coutinho. kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa iska diiday in ay bixiso adduun lacageed oo gaaraya 120 milyan oo ganiga istarliinka ah kaas oo ay ku heli lahayd laacibka reer England Jordan Sancho oo garabka kaga ciyaaro. inta badan waxaan tabiyaa ciyaaraha oo garoomada Shongale Stadium iyo Xasee Kumari aan ka tabiyaa. sidoo kale warbaahintana waxaan ka tabiyaa ciyaaraha anaga oo aad u xiiseeya sportiska. Yusni Maxamed Axmed magaalada Jowhar.